Ra'iisul Wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu soo dhigay muuqaalkan bartiisa X isaga oo qancinaya weli dadka iyada oo lagu celcelinayo waxa uu isticmaalaya barnaamijka waxa loo yaqaano caqliga macmalka isaga oo laba muuqaal oo hore u soo duubay lagu sheegay inuu yahay caqliga macmalka ama ay lagu sameeyay iyadoo leeyahay ama waa dhaawac oo dhinto waxyaabo noocaas ah haddaba muuqaalka waxa ku wehelinaya safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Israa'iil ninka loo yaqaano Mike Kube ayaa ku wehelinaya waxa uu leeyahay markaa oo sheekaysanay markaa safiirka kale waxaan u tagay madaxweynahayga ayaa igu ka war doono inuu nool yahay soo eg halkaana shaki weyn ayaa ku jira marka waxa uu leeyahay haa waa noolahay 5 farood oo caadi aan kugu salaamay buu leeyahay okay laakiin waxaan hayaa card kan buu ayuu leeyahay akhriin card kan maanta waxaan ka saaray buu leeyahay 2 qof cardka iyo wuxuu uga jeedana waan ku sheegi doonaa marka wuxuu leeyahay cardka waxa ku qoran liiska dadka doonaya inay sameystaan nuclear kuwaasi oo maray raba marka hore in Israa'iil baabiyaan kadibna u gudbiyaan Mareykanka gobol oo baabiyaan wuxuu leeyahay kuwa ka ogolaan mayna waan tirtirana labaan ka saaray yani laba isaga oo nin labadii nin shalay iyo maanta ay sheegteen Caaris Wajani ninkii la oran jiray iyo ninka kale ay dileen shalay toona uga jeeda ma filaya sida aan filayo laakiin wuxuu leeyahay marka safiirka Mareykankuna warka farxadda lama garanaysaa waa inaan ku jirin dadka hadda yani la laynayo markaasuu leeyahay Netanyahu adigu waxaad ku jirtaa liiska dadka wanaagsan markaasuu ayuu hadda ku celinaya safiirku waan jecelahay mahadsanid mudane ra'iisul wasaare okay haddaba maalmahan dambe waxa lagu celcelinayay in ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil la dilay muuqaalkan iyo reaction ka laga bixiyo kii hore 6 farood buu yeeshay okay kii labaadna waxa la isku eegay caqliga macmalka lagu sameyn karo kalarka ku batay afku ka duwanaaday dhaqdhaqaaqa shaaha iyo waxyaabuhu sitay oo aan ma aragtay daadanayn markii la isku celceliyo dadku waxay leeyihiin khubarada 76% wuxuu u ekaanaya caqliga macmalka si kastaba ha ahaatee laakiin maanta wuxuu la socdaa safiirkii dalka Mareykanka u fadhiyay isagana balweyne eegi doona in la daba galo la yiraahdo sidan oo ahaa iyo kan kale uu leeyahay laakiin muuqaalkan ayuu soo duubay maanta ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil isaga oo weli ku jira qarcintii dadkii mar walba lahaa waa la dilay waxyaabaha la nooca wixii ka soo kordha mar walba barteenan Digaal TV YouTube iyo Facebook iyo TikTok ayaan idin kula wadaagi doonaa wararka ugu dambeeya xilliga ay dhacayaan iyo waqtiga ay dhacayaan barnaamijka share kale la wadaaga asxaabiyaal taada kuna soo birbirahayna bulsho sida YouTube iyo Facebook iyo TikTok ee Digaal TV